walaalow xilka markii hore waxaa ii magacaabay madaxda dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka siday igu magacaabeen xaq ayay u leeyihiin inay markay la noqoto haddana ay iga qaadaan aniga iyo wasiirkii kaleba wasiirra horeetaa laga qaaday wasiirkii ugu horreeyay oo laga qaado maahay xilka in qofka xilkii uu hayay laga qaado dabcan sababun baa jirta marka maxaynu ku ognahay sababtu sabab gaaro hadda aan ku sheegi karaa ma jirto madaxweynaha sanaan wada shaqaynay abaal ayaan ugu hayaa badan inay fursadda ay siiyeen oo ummadda Soomaaliyeed aan u adeegay 3 sanaan wada shaqaynaynay waa madaxweynahaygii waa ra'iisul wasaarahaygii marka waa privilege in wadalkaaga wasiir lagaaga magacaabo marka wax laga cawdo sababo loo maleeyo ma jirto madaxweynuhu awood buu u leeyahay maaragtay inuu qofku raban xil u magacaabo qofku raban xil ka qaado taas ayaa dhacday soo lagama yaabo in adiga iyo madaxda sare ee waddanka aad wax isku qabateen taasina ay keentay in xilka laga qaado balse aad ka gaabsanayso horta dee ma ogtahay kuma jirto dhaqanka dowladnimada haddii xataa wax la isku qabto inaan daacadaha looga sheeg anigu waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha ayaanu kulannay uu ii sheegay in uu xilka iga qaadayo surprise ma ahayn aniguna waa uga mahadnaqay la shaqayntii fiicnayd marka dhib ma jirto dadku qaar waxay aaminsan yihiin in warqaddii habeen hore ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee looga hadlay xaaladda gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya markii dambana adigu aad beenisay ee sabab u tahay xilka qaadistaada taa ka waran walaalo saan kuu sheegay inuu wasiir waa magacaabi karaa xilna wuu ka qaadi karaa taas ayaana dhacday ma garanaysa markii xilka laga qaaday dawladdu waxay ku soo bandhigtay isla xil kale oo ah safiirnimo taasi ma aqbalaysaa walaalo taasna madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay way sharfay wuxuu siiyay fursad kaleeto oo aan dalka ugu adeego dalkaaga inaad safiir ama wasiir ka noqotid waa wax weyn marka aniguna diyaar baan u ahay ummadayda inaan mar kasta u adeego laakiin 3 sano oo socod badan daal badan oo hawl badan baan ku jiray familigaygii iyo aanu maaragtay kala maqnayn marka waxay ila noqotay inaan waqtiga soo socda aan reerkii maaragtay intii hore uga dhowaado marka sidaas ayaan daar uga sameeyey waayahay maxaa hadda kuwa qorshaha marka mar kasta diyaar ayaan u ahay inaan ummadayda u adeego iyo qarankayga laakiin hadda waxaan rabaa inaan waqti xoogaa familiga siiyo